طيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. marka hore horta waxaan ixtiraamaya qadarin waxaya madaxweynaha, waxaan kaloo ixtiraamaya dastuurka meel gaarka ah, dastuuradii ka horeeyay shuruucda dhaqangalka ah. waxaan halkan ka cadaynayaa in shuruucda dalku oo ugu sarreeyo mar walba dastuurka ay qeexayaan oo dhigayaan kala qaybsanaanta awoodaha fulinta, garsoorka iyo xeertejinta. waxay cadaynayaan oo weliba dastuurka kumbeelgaarka uu cadaynayaa axdiqareemadadii iyo dastuuradii cadaynayaan in garsoorku ka madax banaan yahay laamaha dowladda ee sharci-dejinta iyo fiisan soo sheegay. waa qodob. waa garta arrintaasi sharcigu marka muxuu dhigayaa in xilka lagaaga qaadi karo? sharcigu wuxuu dhigayaa oo dastuurku wuxuu dhigayaa in loo raacayo xeerka nidaamka garsoorka. xeerka nidaamka garsoorka qodobkiisa 23 wuxuu sheegayaa sida ay shaqada uga fariisan karaan xubnaha maxkamadda sare ee gudoomiyuhu ugu horeeyo iyo garsoorayaasha kale ee aan lahayn xubnaha maxkamadda sare. wuxuu cadaynayaa in gudoomiyaha maxkamadda sare, la taliyaha koowaad oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad, la taliyayaasha maxkamadda sare oo ah garsoorayaasha maxkamadda sare ay shaqada kaga fariisanayaan markay gaadhaan da-da 5 iyo 60. wuxuu cadaynayaa in garsoorayaasha kale lagu dabaqayo qodobada la xiriira xeerarka shaqaalaha rayidka ee dowladda. saasay kula qaybsan. marka wixii sharciga waan u hogaansana, waana ka hooseeya. wixii sharciya waan diyaar baan ahay. wixii aan sharci ahayn oo ka baxdaan si sharciya aan arrintaasi u dhicin uma dhicine waxaan gudanayaa xilkaygii iyo waajibaadkaygii dastuurigaha ee lay dhaariyey ee lay. marka waxaad leedahay xilka qaadistii laygu sameeyey waxba kama jirto, anigaa ah gudoomiyihii maxkamadda sare. sharciga looma marin, loomana raacin. waxaa xilka ku banaan karaa marka loo maro sharciga. marka hadda adiga ah gudoomiyihii maxkamadda sare. xilkaygana waa ku gudanayaa, waan ku shaqo tagaya haddii lahayo. ummadda Soomaaliyeed, qaranka Soomaaliyeed meel joogaanba waajibaadkii aan u hayay waa u fulinayay si sharciga loo fahmo. marka madaxweynaha ma ka wada hadasheen xilka qaadistaada ka hor intaan xilka lagaa qaadin? ma jireen wax khilaafaad ah oo idinka dhexeeyay mase arrintan unbaad ka war hesha hal mar? waxay soo kala dambeysay madaxweynaha oo aan u gudbiyey 25 khamiistii qoraal rasmi oo aan kaga warramayo soo jeedin habka iyo hanaanka garsoorka Soomaaliyeed loogu dhisi karayo ama ay tahay in loo dhiso. sidaan u gudbiyey xafiiska ra'iisul wasaaraha gudbiyey, guddiga labada aqal baan gudbiyey, waxaan u gudbiyey guddiyada wasaaradda dastuurka aan gudbiyey, guddiyada dibadhiska dastuurka u qaabilsan ama ha noqdaan kuwa madaxa banaan ama ha noqdaan kuwa baarlamaaniga ah baan u gudbiyey. waxaan ka wada shaqeynay habka iyo hanaanka garsoorka Soomaaliyeed loo dhisi lahaa. waxaa jira guddi la yiraahdo guddiga adeega garsoorka. xagee ku dambeeyay dhismaha guddigaas? waa xilka iyo waajibaadka guddigu wuxuu waajib inuu dhiso waa dastuuriya. shuruucdana way inuu dhiso. waana cidda u qaabilsan soo jeedinta, dalacsiinta, xilka qaadista iyo magacaabista garsoorayaasha. waa hawl dhiman oo ay ahayd in la sameeyo. waxay ugu dambeysay toddobaadkii dhawad inaan madaxweynaha ka hadlayo hab in la dhiso golaha adeega garsoorka. oo waxna waxay ku imanayaan xafiisyo, waxna waxay ku imanayaan magacaabis. wixii xafiisyada ku imanaya jooga mooyaane wixii kale soo dhamaystiro sharciga in la mariyo. adiga waxaa bedeshay gudoomiyihii kaa horeeyay maxkamadda sare Caydiid Ilka Xanaf oo uu xilka ka qaaday madaxweynihii joogay xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo aan guddina loo sii marin. maxaa isleedahay taasuna xalaalay ahayd, tanuna waxaa looma marin sharciga? maxay ku kala duwanaayeen labada xilka qaadis? aan kuugu celiyey qodobka 23 shaqo ka fadhiista da'da awgeed. gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xubnaha maxkamadda sare waxay shaqada ka fariisanayaan markay gaaraan da'da 5 iyo 60aad, yani cimriga 5 iyo 60. madaxweyne xasan sheekh wuxuu kaga fariisiyey gudoomiyihii ugu horeeyay da'da oo uu ku cadeeyey xeerkii ama dikreetada ugu soo saaray inuu gaaray da'dii 5 iyo 60 ka ahayd. waa qodob sharci weeyaan. golihiina markaa ma jirin. taasaa keentay. marka haddii laleeyahay da'dii baad gaadhay waa ahlan sahlan oo 5 iyo 60 gaaray. haddii laleeyahay qodob kala sharci ama qodob kala sharci loo filsaarayo ama lagu dhisayo
sharciga waa hoggaansan ahlan n waxaa jirta marka kadib marka uu madaxweynuhu xilka qaadistaa sameeyey magacaabistana sameeyey wax xiriira ma samayseen maya xiriir ma samayn aniguna waxaan ku tala jiraa inaan shaqadayda sidii caadiga ahayd muqtaabil ahayd laakiin taasoo ma keenayso in aan la wada shaqayn karin oo culaysku uu sii bato oo dagaal adiga iyo madaxtooyada hadda uu furmo waxaan ka rajeynaya dalkana dagaal uma baahna sharci darrana uma baahna waxaan labada gacmood ba u furayaa golaha sharci dejinta waan la shaqeynayo sidaan horeba loo shaqeyn jiray waxaan la shaqeynayaa madaxweynaha iyo waxda sidaan horeba loola shaqeyn jiray waxaan uga shaqeynayaa bulshada reer soomaaliyeed si sharciga waa taqsan sidaan horeba loola shaqeyn jiray anigu maha garsoorku maha hay-ad siyaasadeed laakiin hay-ad sharci marka uma baahna dagaal uma baahna dalkan iyo dadka kaasi wuxuu ahaa guddoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleymaan oo shalayto war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya lagu sheegay in xilkii lagaga qaaday wuxuu u waramayay Falastiin Axmed Iimaan